dhacdadii xalay garoonka ku dhex qabsatay Christian Eriksen ayaa noqotay dhacdada ugu hadalheynta badan ee kubadda cagta. Daanishka kubadda buurahooda Inter Milan Christian Eriksen ayaa daqiiqadii 42 qaybtii hore ciyaarta dhulka ku dhacay markii ciyaaryahanka uu mirar doorsoomaya. Xiriirka kubadda cagta ee Daanishka FA ayaa warbixin rasmi ah ka soo saaray xaaladda Christian Eriksen. FA Daanishka ayaa sheegay in ay la xiriireen Christian Eriksen isla markaana xaaladiisa ay tahay mid fiican. Waxaan la xiriirnay Christian Eriksen waxay noo sheegay inuu bad qabo ayuu mirkiisa dib u helay afyeen u hadlay xiriirka Daanishka ee FA. Qoraal ay soo saareen FA Daanishka iyo qornaa sida tan: waxaan la xiriirnay Christian Eriksen waxa uu noo sheegay inuu bad qabo, waxaan u rajeynay caafimaad taame. Eriksen ayaa isbitaalka ku sii jiraya sabab ku aadan ciyaaryahanka oo dhaqaatiirta u sheegeen wili inaan isbitaalka laga fasixi karin xaaladiisa oo dhaqaatiirta hubinayaan. Eriksen ayaa wadnaha istaagay 5 daqiiqo waxaana ciyaaryahanka isbitaal loola cararay. Durbadiiba ciyaaryahanka daqiiqada kadib dhaqaatiirta ayaa sheegeen in ciyaaryahanka wili uu nool yahay. xiriirka Daanishka iyo UEFA ayaa durbadiiba wada hadal ka yeeshay ciyaarta Denmark iyo Finland u dhaxaysay waxaana la go'aamiyay kadib markii Eriksen mirkiisa uu dib u helay in ciyaarta dib loo bilaabo. Xidigaha Daanishka ayaa si weyn kaga muuqatay murugada laacibka Christian Eriksen ee saaxiibkood, waxaana ciyaarta dib markii loogu soo laabtay sababtay niyadjabkii ka muuqday xidigaha Daanishka in gooldaro lama filaana ee ka dhaxlaan Finland. ciyaarta ayaan ku soo idlaatay gool iyo waxba. xidigaha ay wadaagaan Inter Milan Romelu Lukaku iyo Lautaro Martinez Ivan Perisic ayaa kamid xidigii fariimaha u diray Christian Eriksen ee uu rajeeyay caafimaad. Superstarka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa bartiisa Instagram-ka waxa uu soo dhigay qoraal kaga hadlayay xaaladii adkeeda ee Daanishka kubadda buurahooda Christian Eriksen. ayaan kaga walaacsanahay wixii ku dhacay Eriksen ayuu yiri Cristiano. waxaan ku rajaynayaa saaxiibaha wanaag iyo caafimaad taam ayuu yiri CR7. naadigiisa hore ee Tottenham ayaa kamid ahaa naadiyada fariimaha u diray Christian Eriksen. Arsenal ayaa si lamid bartooda Twitter-ka ku shaaciyay qoraal ee kaga hadlayeen xaaladii adkeed uu galay Christian Eriksen. xiriirka dalka Talyaaniga ayaa sidoo kale ciyaaryahanka caafimaad iyo wanaag u rajeeyay. xidigaha Daanishka iyo xidigaha kubadda cagta ayaa si weyn kaga falceliyay dhacdadii xalay ka dhacday kulankii u dhaxeeyay Denmark iyo Finland, waxaana haatan ciyaaryahanka xaaladiisa tahay mid wanaagsan inkastoo isbitaalka dhaqaatiirta ay sheegeen inuu ku sii jiri doono Christian Eriksen.